أجي حساب صو sheekooyinka murugada leh ee maanka bini'aadanka gilgilaya muddooyinkii ugu dambeeyay waa kuwo ku soo badanayay magaalada xudunta u ah dalkeena ee Muqdisho. dhacdooyinkaasi waxaa qayb ka ah midda hadda warbixinteena ay daaran tahay ee ah 5 jir ka sababsaday gacanta adeerka hooyadii ay u dhaxday. aniga haanta dheer soo maro saarnahay motobajaaj ayaa xaaliyada cunugaadi go'ninta sida ay soo waayay. tani waa hooyo Naciima Abshir oo saygeedii uu nolosha dhaafiyay wiilkeedii yaraa. waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay u dhacday arintan argagax leh. taadana waxay ugu dhacday shalay anigoo maqan oo isbitaal aaday balse cunug inaa walaashay u dhiigtaa rabay waa u dhiigay balse sida ay ugu dhagay wuxuu dhahay ilaa cunug ana haaya ana ku si fiiriyaa u dhahay balse cunug waa ugu tagaa sidoo ooya waan baxay isbitaalka markaa tagay oo soo noqday aniga haanta dheer soo maro saarnahay motobajaaj ayaa xaaliyada cunugaadi go'ninta sida ay soo waayay. cunugtaada oo dhintay dhahay cunugay ma dhintaa dhahay cunugay soo ku dhimatay dhahay marka sida aan dhahay markay xoogahay cunugaygi xaasiisay wax ma siino dhahay cunugaadi naqas ku soo bood cunugay xana naqas kuma boodayna wiliisa naqas kuma dhicin xaasi xaaqala qoqod ma ala kul hal guriga imaado dhahay guriga imaaday ambar markaa jooga cunuga fiiriyay qofta u horeys korkiis fiirsan aniga ahay korkiisa fiiriyay meelaha ana xaq ku taalay wajida hortarkooda waxaan ka arkay qaraafo markaa ka arkaan caloosh ka qaabiyay caloosha waxa lagu dhuftay bareeskan xoobahay oo do bareeska u taqaanid ayaa lagu garaacay oo calooshiisi macal meesh u dhaxays meelaha diirmiya ku taalo caloosha ay hurtay hooya ahay marka cunugaygi gacan kar darnaa dishay marka ina cadaalad ina loo qabtaan jecelahay wax walba sharciga oo ku tiirsan yahay in wax walba loo sameeyaan jecelahay cunugaygi gacan kar darnaa dishay marka gacan dish ina duldoogsha loo qabto loo xukumaan jecelahay hooya ahay baarka dabka marka dhinaca kala deeqa Cabdullaahi Maxamuud waa eedada wiilka yar ee dilkiisa uu u dhacay sida lama filaanka ah. waxa ay sheegtay in wiilka markii ay kala tageen labadiisa waalid uu gacanta ku hayay awowgiis waxa ayna xustay in kadib ay dalbatay wiilka hooyadii in lagu soo wareejiyo wiilkeeda. waxa ay tilmaamtay in muddo ku siman 5 bil uu la joogay hooyadii balse arintan dhacday iminka ay la amakaageen qoyska wiilka uu ka dhashay. cunuga awowgiisa hayay aabiisa ka soo waday hooyadiisa waxay tir cunugayga